Assalaamu calaykum. Isku soo noqod wanaagsan meel walba aad adduunka ka joogtaan. Waxaan ka cudur daaranaynaa muddadii fogeyd ee aan hawada ku kala maqnayn sababo jira awgeed. Balse haatan ayaan dib u soo laabannay halkani waa daruuraha. Muuqaalkeenna waxaan ku soo qaadanaynaa ninkii qoray kitaabka aayadaha shaydaanka ee Salmaan Rushdie oo xaaladiisa caafimaad ay dhaqaatiirtu ka dayranayaan kadib markii Tooriye lagu weeraray. Salmaan Rushdie oo aad looga yaqaan caalamka isla markaana ah nin u dhashay Hindiya balse haysta dhalashada Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd waxaa lagu weeraray Tooriye mar uu hadal ka jeedinayay machadka Chautauqua ee galbeedka magaalada New York ee dalka Mareykanka. Waxaana Salmaan Rushdie ilaa 15 jeer ay mididu gaartay jirkiisa gaar ahaan luqunta iyo caloosha sida ay qortay warbaahinta Ingiriiska. Nin dhalinyaro ah oo markii dambe isla goobta lagu qabtay ayay boolisku ku eedeeyeen falkan. waxaana ninkan eedeysanaha ah oo 24 sano jir ah lagu magacaabaa Haadi Madar. Salmaan Rushdie oo ah ninkii qoray buuggii dalalka islaamka laga mamnuucay ee aayadaha shaydaanka kaasoo uu qoray sanadkii 1988 kuna aflagaadeeyay Qur'aanka Kariimka ah iyo nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa eebbaha yeele ayaa waxaa isagoo aad u liita laga qaaday goobtii waxaana lagula cararay diyaarad helikobtar ahayd oo u duulisay dhanka isbitaalka. wakiilka Salmaan Rushdie oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda Salmaan Rushdie ay aad u liidato haatanna uu ku neefsanayo qalabka oksijiinta isla markaana qalliin degdeg ah lagu sameeyay. waxaana intaa kadib ay dhaqaatiirtu sheegeen in haddii uu bogsado ay u badan tahay in mid ka mid ah ishiisa ay aragga weyn doonto sidoo kalena neerfayaasha mid ka mid ah garbihiisa ayaa dhaawac halis ahi gaaray taasoo waxyeelayn karta beerkiisa. nin kale oo isna xiriiriye ka ahaa goobta uu khudbadda ka jeedinayay Salmaan Rushdie ayaa goobta isagana lagu waxyeeleeyay waxaana soo gaaray dhaawac fudud. Salmaan Rushdie ayaa muddo 30 sannadood ah waxaa soo gaarayay hanjabaadyo dil ah oo daba joogay buuggiisii aayadaha shaydaanka waxaase hanjabaadahaasi ay keeneen in muddo ku dhow 10 sannadood uu dhuunto. wadaadkii hore ee reer Iiraan Ayatullaahi Al-Khumeyni ayaa dhammaadkii 80meeyadii waxa uu soo saaray fadwo uu ku banaynayo dilka Salmaan Rushdie isagoo ciddii soo dishana u ballan qaaday abaalmarin $3 milyan oo dollar ah. waxaana fadwadaasi ay ciriiri gelisay nolosha Salmaan Rushdie oo keligii ku noolaa meel qarsoon si aan loo arag. mu'asasad kale oo diini ah oo laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa abaalmarintii la dul dhigay madaxa Salmaan Rushdie waxay sanadkii 2012 ku biirisay $500,000 oo dollar. sanadkii 2007 ayaa boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth II waxay darajada Sir guddoonsiisay Salmaan Rushdie taasoo keentay in dalal badan oo islaam ah qaarkood ay ka dhacaan mudaharaadyo waaweyn iyadoo kadibna la tilmaamay in abaalmarintani ay ciriiri sii gelin doonto nafta Salmaan Rushdie oo markii horeba qiila waqaala ku jirtay. dhanka kalena madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray muddo 33 sannadood ah waxaa Salmaan Rushdie uu u halgamayay xorriyadda iyo la dagaalanka mugdiga. haatan waxa uu dhibano u noqday weerar fulaynimo ah oo ka yimid dhanka xoogagga karaahiyada iyo cawaanta ah. dagaalka Rushdie waa dagaalkeenna waa dagaal caalami ah garabkiisa ayaanan taagannahay. ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Boris Johnson ayaa isaguna yidhi aad baan u argagaxay markaan maqlay in Sir Salmaan Rushdie la dhaawacay isagoo ku guda jiray xuquuq ay waajib tahay inaanan laga leexleexan dalbashadeeda. isku soo wada duubo qoraagan 75 sano jirka ah ee u gafay diinteenna suuban ee islaamka ayaa la bartilmaameedsanayay sannadahaasi aadka u faraha badan iyadoo iskuul walba iyo goob walba oo uu khudbad ka jeediyana loo reebayay fariimo hanjabaad ah oo lagu leeyahay Salmaan Rushdie ayaad casuunteen oo khudbad ka jeediyay iskuulkiina ama goobtiina soo ma ahan waxaad ka heshaan waxba ha naga siinina. ilaalo xoog badan ayaa lagu bixiyay Salmaan Rushdie tan iyo 80meeyadii laakiin Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ilmo dhowrto. ugu dambeyntiina shalay ayaa birta laga aslay galkan weyn. haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalkeenna waxaan kaa dalbanaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso. haddii ay tahay markii kuugu horreyso aad soo booqato barteennana waxaan ku leenahay subscribe inagu dhiirigeli. daruuraha